بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواad channelkeena farxiya kushiin asxaabta qaaliga markale iyo muuqaal cusub afaarahan qaabka u samaysan lahayd ayaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo. Kaas waa basal shiidan, barbarooni shiidan waa midkaan gaduudan. waa ujeedaan gurigaada ku samaysan kartaa maasha Allah. naftaada u samaysan kartaa oo maxaan ku radaa xawaajida u baahan tahay Soomahan waa ka ganacsan kartaa sida ugu fudud. kan waa toon qaabka ugu fudud oo gurigaada ugu samaysan kartid kabsar caleen shiidan, toon shiidan, barbarooni shiidan, basal shiidan, basbaas shiidan, caleen nacnac shiidan. kan waa kabsar caleen mujeedina maasha Allah tabaarakallah. firinjeer ma haystii kabsar caleen saan u kaydiyaa caraftana lagama sheekeen karo. qaabka ugu fudud oo gurigaaga ugu samaysan kartid huruuda shiidan, kabsar caleen shiidan. haddaad doontid xitaa maasha Allah ganacsi ka samayn kartaa oo waa ka ganacsan kartaa. kan huruud waaye huruuda saa markay tahay haddii aad dhahdo waan dhaqayaa meelaha qaar waxaa waaye ma dhaqi kartid micnaha waxay leedahay meelo qaar oo dhoobo ay ku dhigtay. markaa soo gadid waxaa samaynaysaa marka hore waa fiiqaysaa. markaa fiiqdid kadib ayaa maxaan ku irahdaa si fiican u dhaqaysaa. waa huruud qoyan. huruuda qoyanna suuqa laga helaa, suuqa qudaartaaba ka heli kartiin. huruud organic ah maasha Allah tabaarakallah oo gacantaada aad ku samaysatay maxaa ka fiicanba. ugu horeen haddii aad ku cusubtahay channelka waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad taawatid kadibna gambalelka taawo si muuqaal walba usoo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah. muuqaalkan hadduu idin soo gaaro dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad like noo saartaan oo weliba 10,000 oo like aa lidinka raba ma fahanteen. horaan 1,000 aa lidin dhijir laakiin muuqaalkan waqti badan aan gelin ma fahanteen. saas darteeda 10,000 oo like ayaa lidinka rabaa balaan aragno insha Allah. intaas kadib huruudi waan soo fiiqay waana soo dhaqay. haddii aad haysanin mashiinka aan ku shiidi doono waxaa samaynaysaa balbalaarkaas oo khafiifkaas aad u jarjaranaysaa. saas usoo khafiifinaysaa. laakiin aniga waxaan rabaa waaweynka inaan u googooyo kadibna makiilada qudaarta iyo hilibka lagu shiido ayaan rabaa inaan ku shiido. laakiin adiga haddii aad haysanin waxaa la rabaa si khafiif oo balbalaar inaa usoo jarjartid. huruudi oo dhan saan ayaan usoo googooynayaa insha Allah. intaas kadib waxaan soo qaatay kan qudaarta iyo hilibka lagu jarjaro kadibna waan kusoo gurayaa. laba qayb camal ayaan ka dhigayaa ama intii markaas oo macquul ah. aad uma buuxinaysa hadduu ku yaalo asaga le wax walba ku shiidan kartaa. haddaa haysaninna khafiif u jarjar. intaas kadib waa soo shiidayaa. waxaaba si yaryar uu kugu jarjaraa xitaa markaad qoraxda dhigtid alaabtan dhaqso ay qaleel noqonaysaa. huruud waxaa caafimaadka u fiican tahay, caanaha lagu qastaa, cuntada lagu darsadaa. huruuda caafimaadka u fiican tahay maasha Allah. saas darteed gacantaada ku samaysan kartaa. saxanka sidaa u saaraysaa kadibna saas u kala fogeynaysaa. waa u jeedaan saxankii koobaad. saxanka labaadna sidoo kale laba qayb ama ka dhigay huruuda. afaaraan waxaa haddaad doonto xitaa waa ka ganacsan kartaa gurigaada. hooyo gurigeeda joogto oo guri ka bixin haddii aad tahay qoraxda le ku qalajinaysaa, waa shiidaysaa, gasacyaa ka buuxinaysaa. xaafadaha ka iyo xaafadaha ani waxaa rabaa inaan idinkaga faa'iido oo kaliya ani ma gadahay ma fahanteen. tii anaa isticmaal lahaa unbaa idin tusinayaa qaabka u samaysan kartid. qaybtii labaadna bacdaas ayaan ku shubay kadibna waxaan dhigayaa qoraxda banaanka. baryaha Nairobi waxaa kuleyl iyo qorax Allahu akbar. intaas kadib qoraxdaan dhigayaa. afaarahan waxaa waaye 2 maalin 3 maalmood ku qalalaan. qoraxda jirta ay ku xiran tahay. haddii qorax aad ay jirto waxaa waaye 2 maalmood. haddii qorax saas jirin waxaa waaye 3 maalmood. haddaa Soomaali joogto waxaa maalin laga inay kugu qaleel ay kugu noqoto Soomahan. kan waxaa waa caleen nacnac ama caleen mint. caleen mintigan shalan soo iibiya asoo fresh ah. hadda ma loo maleynaa ka hor wax meel waqti badan yaalaad u maleysaa. caleen nacnac sidiisaba saas waaye ama mint qofba siduu u yaqaano ma ku yaala waqti badan. waa isku rafaadaysan asxan asoo fresh soo gado dhaq. markaa dhaqdid kadibna waxaa samaynaysaa waa jarjaraysaa. ani marka hore waxaan qaladan sameeyay ma taqaanin caleenta oo kaliyan ka saar markaas wax yariis iga noqday. macal geedkiisa haddii aad ku jarjartid waxaa waaye caag buuxuu kuu noqonaa. caleentaas oo kaliya inaan ka gogooy maba ahaynba. laakiin kabsar caleenta macal geedkeeda waxeeda dhanaad la jarjaraysaa. waxaa sameynaa hadda waa soo goynayaa. intaas kadib markaan saan caleenta uga saaro kadibna waan dhaqayaa. caleentaan ka soo saaro waan dhaqa. caleenta oo kaliya markaa ka saartid wax yariis uu noqonaa asaga dhan markuu qaleel noqdo oo shiidid. intaas kadib waxaan soo qaatay saxankii oo foornada. adi saxan ayu nooc wax lee qoraxda aad la dhigtid unbaa la rabaa. saxankii waa dhaqay biyahan kasoo qalajiyey. caleentina waan soo dhaqay waa soo nadiifiyey. intaas kadib
caleenta dhanba intaas ay noqotay saxanka sida uu kala firaarinaya kadibna qoraxda ayaan dhigayaa alaabtan dhanba hal mar wada sameeyay fahanteen hal mar qoraxda wada dhigay waayo qoraxda marka dhigaysid waxa waqti badan ay qaadanaysaa maalin laba maalmood ay kugu qaadanaysaa yaa maalin walba hal xaba sameeyna hadii aad waxa waqti badan ay qaadanaysaa Soomahan wixii dhanba hal mar la sameeyay hadaa doontid foornada u dhaafi kasta hadii dhul qaboobo maxaan ku iraadaa roobka aan macnaha qorax lahayn hadii aad joogtid foornada ku sameysan kartaa foornadana dab liciif ay u baahan tahay oo ka gubanayna qandac camal 24 saacadood inay foornada ku jirto dabkana konton camal u geynaysaa yiriisa ka dhigaysaa dabkeeda laakiin anaga qoraxda waa taasa yaa bilaasha alxamdulillah ala nicmatillah qoraxdan dhigay had waxaaba kabsar caleenti jawaan dhan mis dhahdeen yaa kabsar caleenti waa taasa waqti badan ay ku yaalaysaa ma sha Allah tabarakallah mar badan ay gabdhahay soo weydiyeen frinjeer ma haystii kabsar caleenti u kaydin karaa kabsar caleenti marka hore soo qaba ayadana waa qala jireena caraftana waxaan ku dhahay suugada lagu daro ma malaysan kartid yaa wax hadii aad qalajiso aashid in carafteeda ka lumays ma u malaysay may caraf suugadan quruxda ka dhigaysa cagaar ma sha Allah wax ka halaabay ma ahan wax isbedelay ma ahan waan soo gogoy ayadana waan soo dhaqay hadii mashiinka ay haysan kabsar caleenta waa si yaryar u gogoynaysa si yariisa u gogoynaysa kadibna weelkeed ku kordaadinaysa qoraxda ayaad dhigaysaa ayadoo yara qoyan hadii aad dhahdo waan shiida waxa ogaataa wax dhan way isku dhagaayaan qallayl inay noqoto jajawayaal raam fahanteen muuqaalka dhamays insha Allah si aad oga faa'iidaan waxa sameeynaa hadda kabsar caleentii waan soo shiidayaa mashiinka waxa uu ku gogoynayaa saas oo soo shiidaysa si fiican hada diyaar waayo waxaan soo qaadanayaa weelka aan ku gadin lahaa kabsar caleenta waxa macal geedkeeda markaad ku gogoysid kabsar caleen badan ay ku noqonaysaa laakiin hadii aad dhahdo caleenta oo kaliya ka saaraya wax yariis oo maxaan ku iraadaa maalmo la isticmaashada noqonaysa laakiin kan waxa bil dhan kabsar caleen soo gadaysan ku dhahay yaa yar la isticmaalaysa qaadada hafkeeda ku filan inaad suugad iyo maraqa iyo hilibiyada aad ku darsatid ma sha Allah qoraxdan dhigaa sidoo kale kabsar caleentii intaas kadib dhinaca kale waa toon nus kiilo toon soo fiiqay toontana sidoo kale marka soo fiiqay kadib waxa sameeynaa waan soo shiidaa isla mashiinkan la isticmaalaya mashiinkan waa kuwa aniga iibiyo hadii aad u baahan tahay soo qabo oo lagu keenaa waana qiimo macquul reer neero hadaa tahay meel ka baxsan hadii aad joogtin waa lagu soo dhiibi karaa waa ujeedaan toontina sidoo kale adigoo wax biyo ku darnaal raba toonta inaad shiidid ama aad gogoysid si yaryar xitaa oo balbalaara u soo jaran kartaa toonta qafiifa ka dhigi kartaa intaas kadib waxa soo qaadanayaa saxankaas ayaan ku soo gudinayaa toontana sidoo kale saxankaas ayaa soo qaatay toonta waxa si toos hadii saxanka ugu shubtid markay qaleel noqoto saxanka ay ku dhageysaa ma fahanteen warqadan baking paper waxa markay qaleel noqoto si tartiib ah uga qaadaysaa toonta saa markay tahay badan tahay laakiin saxan kale ayaan qayb saari doonaa qoraxda ayaan dhigaa insha Allah dhinaca kale waa basal shiidan wali ma isticmaashay dhadhankeeda lagama sheekeen karaan ku dhahay suugadii iyo maraqii iyo suqaarkii lagu daro waa ka fahmaysaa macnaha hadaadan wali tijaabinin toon shiidan tijaabi xitaa ayadoo diyaarsan waa laga helaa supermarketyada laakiin marka adiga sameeysanay sida ka si fiican kiilo iyo bar waxaan soo qaatay oo basal ah intaas kadib waan soo gogoynayaa mashiinkaas aan ku ridayaa waxaan dhahay si yaryar ayay iigu jarjaraysaa adiga hadaa doontid mindida u qaado si yariisa u jarjaran kartaa Soomahan ama balbalaar oo qafiif ah ka dhigi kartaa qoraxda hadii aad digtid ayada wadanteeda u qalalayso intaas kadib qaybtii koowaad ayaan ku soo riday waxaan ku iraadaa geedka wax lagu jarjaro chopaga kadib waa ku soo jarjarayaa si yariisa iigu gogoynaysaa ma sha Allah wal fududeen waay waa ujeedaan saana u soo jarjarayaa basashiyo dhan kadib waxaan soo qaatay saxan basash ilaa 2 saxan camal ay noqon doontaa saxanka ayaan ku gudinayaa basashana sidoo kale qoraxda la dhigayaa saxamihii kale ayaa laga daba geynaa ma fahanteen afaaran qoraxda la u dhaafaysaa meel nadiif ah oo bus iyo carri iyo wasaq ayna gaareen ayaa la rabaa inaad dhigtid maalinkii oo dhan subaxdii banaanka dhigaysa markay qoraxda soo baxdo galabtiina waa soo xareynaysaa subaxda dambana saas camal waa soo xareynaysaa waayo hadii habeenkii banaanka u dhaaftid uu roobku daa ka waran yaa qasaaro ma aha koow inaad soo adeegtid waaye soo inaad ka taxadirtid way fiican tahay saxanka labaad sidoo kale alwaaxaas ku soo gadiyay basash saxankii labaad ayaan ku soo gadiyay alwaaxaas kadib saas u kala fogeynayaa kadibna qoraxdan dhigaa dhinaca kale waxa waay barbarooniga waa soo dhaqay intaas kadib cagaarkaas hore un baa ka jaraysaa
kadibna si yar yaraan usoo gogoynayaa makiinadan u qaadanayaa waa soo shiidayaa saa idiin sheegay makiinadaas qofka haysanin si qafiif oo balbalaar yariis u jarjaran kartaa intaas kadib waa aan soo jarjaray waxaan soo qaadanayaa makiinadii aan ku shiidayay qudaarta makiinadan waxaa loogu talagalay qudaarta ayu nooc hilib hadduu bisil yahay hadduu ceerin yahay waxyaabahaas oo dhan kaala argan ku kala tuuraysaa maasha allah waana macdan adag wax ka dhaqaaqay ma ahan intaas kadib waa soo shiiday barbarooniga markaa shiidid waxaa biyo keena ma fahanteen biyaha inaa ka majuujisaa la rabaa biyahaasna biyo la daadinayo ma ahan suugada maraqa waxaa doontada ku darsan kartaa biyahan ka majuujinayaa diyaar waaye barbarooniga dhan waa soo wada shiidaya insha allah intaas kadib saxankaas weena soo qaatay waa kusoo gedinayaa markaa saxanka aad kusoo gedisid waxaa la rabaa inaad sidaa u kala fogeyso saxanka aad la sintid qoraxdan dhignay yaa intaas kadib waxaan sugaynaa qallayl intay ka noqonayso maalin 2 maalin 3 maalmood cala kulli xaal waxaa la rabaa qallayl inay noqoto ay jajabayso ma fahanteen inay jajabayso la rabaa ujeedaan weli wax yar u dhiman basasha dhinaca kale waxaa waaye basbaas cagaarka waa soo dhaqaysaa waa nus kiilo basbaas cagaar ah waan soo dhaqay macal geedkiisa rabaa inaan ku shiido macnaha waxyaabaha oo afka hore uga yaalo geedahaas u wata xitaa waa ku shiidayaa waa inaad si fiican u shiidid ama waa gogoyni kartaa asaga xitaa wax walba oo maxaan ku yiraahdaa aad saan rabtid inaad u hagaajisid qasab ma mashiinka leena u isticmaashid mashiinka waxaa howl fududeen le waaye laakiin waa gogoyni kartaa soo maahan basbaaska xitaa balbalaara u jarjari kartaa kadib waxaan soo qaatay saxankaas inkastoo saxankaas uu yar yahay weel weyn aan ku gidin doonaa qoraxda aan dhigi doonaa insha allah basbaaskiina waa kasaa basbaasan soo gado iga halaabi iyo sheekada waa isdhaafaysaan asoo shiidanoo gasac kugu jiraad maalin walba qaadadoo ka isticmaali kartaa basbaas shiniya ka hagaajin kartaa insha allah anoo hagaajina waa soo gelin doonaa dhinaca kaleeto huruudii qallayl ayay noqotay maalmo kadib hadda waxaa rabaa inaan wixii dhanba aan shiido 3 maalmood kadib waa ma fahanteen huruudda horta waxay ku qalashay 2 maalmood wax banaan ku yara daaho 3 maalmood qaato waxaa basasha iyo barbarooniga ma fahanteen huruudii ugu dambeyntii maasha allah mashiinka aan geliyay mashiimankan waa kuwa aniga gado mashiimankan waa halkan garaafo qaleylka lagu shiidaa cabitaankan waa lagu shiitaa waa ujeedaan wixii dhan buray ka dhigto maasha allah huruudii yaa inaba caadi ma ahan waaw maasha allah tabaarakallah huruudii saas ay kusoo baxday huruud organic ah gacantaada aad ku shiidad ka waran carafteeda lagama sheekeyn karo xitaa huruudiyaha kala diyaarsan saan jaallo uma aha yaa ayada dhan waa ujeedaan maasha allah qaybtii koowaad huruudii saas ay kusoo dhamaatay sheekadeeda dhinaca kaleeto caleen mint waaye mint ama caleen nacnac qofba siduu u yaqaano caleentan kabsar caleenta way ka daran ma fahanteen maalmo xitaa ma yaali karto laakiin markaas saan u shiidadaan ku dhahay yaa dhowr bilood isticmaali kartaa idoo isbedelin caleen nacnac mise caleen mintiga maxaa loo isticmaalaa wax walba loo isticmaalaa cabitaanka lagu darsadaa cuntooyinka lagu darsadaa caraf ayuu ka dhigayaa cuntadii lagu daro ama cabitaankii lagu daro caleen nacnaca waxaa aad u caraf badan yahay maasha allah caafimaadkana wuu u fiican yahay shaaha xitaa waa lagu darsadaa waa ujeedaan asagana saas ayuu noqday waqti badan aad isticmaali kartaa maasha allah tabaarakallah weelkaaga daboolka le ku shubo dhinaca kaleeto barbarooniga waaye qallayl uu noqdo ujeedaan saas uu jajabayaa haddii maxaan ku yiraahdaa kastoo uu jiijiid maayo oo si fiican uu u qalalin waxaa ogaataa markaa shiidid inuu isku dhagayo isaga dhan waxaa la rabaa qallayl inuu noqdo uu jajabaayo waa shiidaysaa waa inaad si fiican u shiidid makiinadan waxaa waxyaabo qaleel iyo waxyaabo maxaan ku yiraahdaa cabitaanka qoyaanka waxaas oo dhan loogu tirigal waana halkan garaafo waa ujeedaan maasha allah tabaarakallah bur camal ayay ka dhigtay huruud shiidan gurigaada ku samaysan kartaa caraftan ku dhahay yaa mid banaanka laga iibinayo lagu gadatana ka caraf badan dhinaca kaleeto waxaa waaye kabsar caleentii way soo qaleylay noqotay 3 saxan ayaan ka dhigay macal geedaheeda markaad ku jarjarsid waxaa ayada dhan way badanaysaa maasha allah qaleyl ayay noqotay intaas kadib waxa sameynayaa waa ujeedaan 3 qayb aan ka dhigay waayo hal saxan weyn hadii aad ku shubtid waxaa dhaqso qaleyl ma noqonayso ayada nasaas u kala daadanaysaa ujeedaan maasha allah kadib garaafada la soo qaadanaa ayadana sidoo kale waa shiidaa si fiican kabsar caleenta soo tijaabi insha allah kabsar caleenta markii maxaan ku yiraahdaa xitaa qaadada haafkeeda aad ku dartid suugada ama maraqa aad ku dartid ama bariiska waa laga dareemaa inaad kabsar caleen ku dartay markaas saan u shiidadeeba carafteeda markaas ay iimaanaysaa yaa waxa u malaysaa inay carafteeda dhumayso ayada dhan caraf kabsar caleen xitaa waa la fahmayaa markaad maraqa ku dartid ama suugada aad ku darsatid saasay u soo shiiday makiinadii waa ujeedaan kabsar caleentii yaa kabsar caleenta saliid inta lagu shiido fridge la gelinaa waa la iska dhaafaan ku dhan fahanteen waa kaas bilaa saliid iyadoo sideeda qaleel markay noqoto waa shiidanaysaa
ما شاء الله تبارك الله. فرنجير ما هستي كبسر علين سي وكيديا واكاسا waxaa rajeynaa inaad ka faa'iideen insha Allah muuqaalka ha noqdo kii ugu laagta badnaa hal qof hal group inta awoodid u share gareeya insha Allah waad ku maadsantiin daawashadiina commentiina iyo waliba dhiirigelintiina wali koo lama jooga muuqaalka dhameyso kabsar caleen sheekadaas ay ku soo dhamaatay wax isbedelay ma ahan wax ka halaabay ma ahan waa 300 mg koobka maxaa la jiray caagadaas u jeedaan kanto maxaa la jiray waxa waay basashi waa qalleeyay noqotay basashii qaleel ayay noqotay sidoo kaleeto mashiinkan ku soo shiidaya mashiinka shiirkiisa waxa laga dareemayaa basal ma ah toon waa toonta marka shiidaysid amal mashiinka waa inaad saabuun u qaadato si fiican u dhaqdid intaas kadib basashii si fiican u soo shiiday waa ujeedaa ayada dhan buday noqotay ma sha Allah tabaarakallah basasha waxaan ku dhahay cuntada lagu daro dhadhankeeda muuqaalka dhameyso anigoo ku daraayo maxaan ku raadaay suqaarka u isticmaalayo waxyaabaha aashiido dhan ayaa idin tusina insha Allah waxyaabo badan aan u isticmaalayno waa soo gelin doonaa basashi waa ujeedaan saas ay ku soo baxday kalarkeeda pinki camal waaye pinki camal ay ku soo baxday dhinaca kale kan waxa waaye basbaaska ma fahanteen qallayl uu noqday asagana basbaaska qallayl uu noqday mashiinkii toonta ku shiiday laakiin wax ma ka dhibayso basbaaskan ku shiidaya ugu dambeyntii waxyaabihii dhan waa soo dhameyn samahan wax miyaan hilmaamay soo xasuusiya alaabta dhan waxa waaye 7 shay waaye ugu dambeyntii waxaan soo shiideen hadda waxay tahay waa basbaaska qallayl ayuu noqday si fiican ay u shiidaysaa basbaaskan waxa basbaas shinni marka samaysan rabtid basbaas caadi marka samaysan rabtid basbaaska waxaan ku dhahay kaama halaaba isma bedelayo ma sha Allah tabaarakallah basbaaska iga halaaba basbaaska ali isoo iibiyo ma jirto gasacaada la ku shubo iyar u isticmaalaysaa ujeedaan asagana weelkaada ku shubanaysaa wax isbedelayo ma ahan asagana waxa rajeynaa ka faa'iideen waxa ugu dambeeyo soo shiidna waxa waaye basbaaska asagana waxaan ku soo shubanayaa weel dhamaan hadda xawaajiyada waan soo diyaarsanaynaa oo ujeedaan basbaaskii caagaas ayaan ku soo shubay xawaajiyada dhan hadda waa soo dhameynay waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideen like ta naga bakheelina saa idin sheegay 10,000 oo like inaan gaarno ma fahanteen kan waxa waaye waa basashii pink camal noqonaysaa kan waa barbarooniga shiidnaa barbarooniga adiga aad sameysana macaan dhadhan iyo caraf asaa ka caraf badan midka banaanka toontana waa taasaa ma sha Allah tabaarakallah saas ay ku soo baxday kan kabsar caleentii kaas kale waa huruudi dhinaca kale waxa waaye kan huruudi ayada dhan waa ujeedaan ma sha Allah huruud organic ah gacantaada ku sameysan kartid kan waxa waa caleen nacnac ma caleen mint saa u taqaanidba kan waa basbaaskii ayaga dhan waxa waa 7 shay hadda waa soo dhameynay dhinaca kale waxa dabka isa dhinaca kale waxa waa suqaar hilib geel waa si fiican ay u bislaaday waxaan ku daraa qaadada haafkeeda huruud ah qaadada haafkeeda oo toon shiidan qaadada haafkeeda oo barbarooniga shiidan qaadada haafkeeda oo basal shiidan alaabta waxaan ku dhahay markaas saa u isticmaashadan ku dhadhankiisa caraftiisa lagama sheekeyn karo kan waxa waa kabsar caleen wax yar oo caleen nacnac ku daraysaa caleenta mint ama nacnac qof u yaqaan caleentaas waxa waa caraf waa ayada dhan lagama badinaa wax yariis la u baahan tahay intaas kadib daboolka dhab ku siisanaysaa suqaarka looma gaaraan ku dhahay basasha siidan iyo maxaan ku radaa afaarahaas oo dhan dhamaantiin waxay idinku codsanaa muuqaalka inaad like saartaan si share gareysaan jazakallahu khayran waad ku mahadsantiin daawashadiina commentiyadiina iyo waliba dhiirigelintiina waxay idinku codsanaa muuqaalka inaad share gareysaan hal qof hal group intaad awoodid u share garay weelka xawaajiyada ku soo shubanaysaa ma sha Allah daboolkiisa dhab ku siisanaysaa alaab waqti badan isticmaalaysid waaye mid walba in yaraan ka soo shubay caagadii ku wada jirta saliid FK waa saliid dabiici ah waa saliid timaha bixiso jajabka ilaalisa agoolka ka saarto timahaaga haday qaleel yihiin qoyaan ayay ka dhigaysaa ma sha Allah tabaarakallah jimle iyo tafaariqna waan ku bixinaa hadii aad u baahan tahay ila soo xiriir telefoon number shaashada kaaga muuqdo